waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta ogaadaya armeelal maxamed cumar ismaan inuu warbixin iyo xubin siiyo. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh. السلام يا دمان ابنها يتاغيرياشا iyo dadka sharafta leh ee caawa ka soo qayb galay shirkan aad iyo aad baan idin salaamaya dalkeena ogaadeenaya waad la socotaan waa dal gumaysi ku jira dhibaato fara badan baa runtii ka jirta dalkaas dal hadduu gumaysi ka jirana yani sida dalkeena oo kale un bay dhibaato mar walba ka taagantahay dhibaatadaasi mar walba heer bay soo maraysay waxaanan filahayaa in sidii hadda diirana uu sheegayay nasrigii hawlihii aynu u halgaban iyo guushii baa soo dhow inay arrintu tahay yaan u malaynayaa gumaysigu dhibaatadantada faraha badan oo hadda uu dadkeena ku hayo waxbaa keenay gumaysigii marka wuu ka quustay shacbigii wax kasta uu isku dayay xeelad kastana wuu la yimid awood kasta oo ciidan iyo mid caburineedna wuu isku dayay gumaysigii hase yeeshee shacbiga reer ogaadeenaya runtii cadowgii dhinacuu iska mariyey shaki kuma jira shacbiga reer ogaadeenaya intay ka baxeen wixii shaki ahaa yay gumaysigii dhinaciisa ka mariyeen gumaysigu marka uma naxariisanayo wuu xidhahayaa wuuna dilayaa wuu faraxumaynayaa wuuna mataqaanaa wax alla wixii bani aadam lagu dhibi jiray oo dhan yuu ku kacahayaa dilkii awal hore aynu niqiino ee xabadda ahaa waxaa ka duwan uu hadda la yimid in uu dadkeena marjiyo yani silig ama ku marjiyo ama go intii la qaado oo la maroojiyo intii ruuxa luqunta lagaga xidho ama caloosha lagaga xidho laba kooxood oo askara midna xagga u jiin midna xagga u jiin ruuxiina dhaqso u dhimanayo ama ruuxa intii god lagu rido godka isagoo ku jira cunaha laga qabanayo oo lagu xidhaaya siligaas yani habka foosho xun ee dadka loo dilo ya moodaa inuu taktikada uu isticmaalay hadda ujeedaduna waxa weeye cabsi gelin uu shacbiga cabsi gelinayo shacbigaasi ama ha ahaado kuwa magaalooyinka jooga ama kuwa tuulooyinka jooga ha ahaado kuwa xoolaha dhaqda kuwa beeraha fasha dhammaantood daraf ka maraya maxaa yeelay hal qolo oo isu soo taagaysa kuwa dan ku qaba oo kuwa maamulka ah mooyee cid isu soo taagaysa ma jira gumaysiga marka shacbiga reer ogaadeenaya runtii waa shacbi aad iyo aad u qiimo badan waa shacbi aad geesi oo adkaysin badan oo sabir badan sidii hadda uu sheekhu inoo sheegay shacbi sabir badan weey dhibaatada ku samrahaya oo adkaysanaya dhibaatada gumaysiga neceb oo aan marnaba gumaysiga aan mataqaanaa aan yeelay dadka shacbiga reer ogaadeenaya ee gudihii ku jira waa ka dhab inay Itoobiya ay ka xoroobaan waa ka dhab shaki kuma jirto surma seeta male waa ka dhab waxa ay yaqaanaan waxa weeye gobonimo waxayna og yihiin gobonimada in cadawga la dagaalamo mooy inaan si kale lagu helin la yiraahdo ciidamada wadaniga xoreynta ogaadeenaya ciidamadaasi waa ciidamo runtii tira ahaan badan taya ahaana aad u qiimi badan tababar fiican leh qalab wanaagsan leh يعني حبنيه باتين انتينا ميشا جوكتا مركا وانا حقيقة إذين شايو عيدا ما آدي آدو ترابدان حدي دالكين الودير ريانا أن دالكين آدو بلاريه منكي يقانا دالكين آدو ويه حدنا عيدا ما دينو مانتا وحي كل ويهين إنا يدبولان دولكين أو دولكين أو دولكين أي دبولان
يعني نفقيدا مداس أما نفتوض هرياشاس وعيدمو يعني مبدأ له waxay u dagaalamaan yaqaan waxa ugu muhiimsan qofka bani aadamki markuu wax uu go'aansado oo hawl inuu qabto rabo waa inuu mabda' leeyahay oo hawshaas waxa uu doonayo waa inuu og yahay waxa uu doonayo waa inuu og yahay naftood horeyaasha ciidamadeena way og yihiin waxay doonayaan wayna ka go'an tahay waxa ay doonayaan inay gaaraan way ka go'an tahay wayna u kalsoonaan karo runtii ciidamo lagu kalsoonaan karayo waajibaadkoodana yaqaana si fiicanna u ciidankii cadawga ee gobolka ogaadeen iyo joogay ciidamadeena way ka adag yihiin wayna ka gacan sareeyaan aad iyo aad waxa weeye marka ciidan iyo shacbi isu dheelitiran oo geesi ah waxay doonayaan yaqaana ee cadawgana quursanaya ka faanaya rumaysan inay ka adag yihiin oo ka adkaanayaan yaa halka idin jira oo aad leedihiin oo ku dhaaran karaysaan taasi waxay keentay in geeska Afrika maanta quwada ugu xooga badan in la tixgeliyo mudan inay tahay ogaadeen iyo ciidankeeda waxay marka ay Itoobiya qorshaysatay inay Soomaaliya guud ahaan gacanta ku dhigto ama si toos ay gacanta ugu dhigto ama si dadban ay gacanta ugu dhigto si toos waxaan u jeedaa waa kay ku duushay oo ay qabsatay magaalo madaxdii iyo dalka intiisii kale si dadbanna waxa aan u jeedaa gobolladii Soomaaliya oo dhan inay iyadu maamulayso dawladdii Soomaaliya dawlad kasta oo dhalata runtii waxa mar walba jabiya mar walba sababa inayna yoolkeedii gaadhin Itoobiya way aad iyo aad baan idinku mahadinayaa sida wanaagsan ay aad noo dhageysateen